maamulka iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo qaar kamida bulshada ku dhaqan xaafadda Sheekh Axmed Salaan ee magaalada Boorama ayaa maanta waxay xaafadaasi ka sameeyeen howlo balaaran oo lagu nadiifinayo qashinka yaala qaybo ka tirsan xaafadaasi maamulka dawladda hoose waxa horkacaya gudoomiyaha golaha deegaanka cusub ee degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi waxaana kamid ahaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama 22 ka gaaraya ee dhawaan ka soo baxay doorashadii golaha deegaanka ee degmada Boorama ka dhacday kuwaasoo faraha ula tagay qashinka yaala qaybo kamid ah xaafadaasi Sheekh Axmed Salaan gudoomiyaha degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi ayaa waxa uu saxaafadda kula hadlay gudaha xaafadaasi wuxuuna ka hadlay howlahan qashinka lagu aruurinayo oo iska kaashadeen dadweynaha ku dhaqan xaafadaasi Sheekh Axmed Salaan ee magaalada Boorama naguna dhiirigeliyay inaan u heelanaano oo 24 saac u garab taagnaano oo aan tixgelino codsigooga waa baahi jirta runtii sidaan horeyba u sheegnay kor ayaan hawlgalkani ma aha kii ugu horeeyay waa kii labaad waxaan ugu talagalnay oo balantaydu ay tahay ilaa meeshaas ay ku soo noqonaysa sideedii nadiifta ahayd in aan ka daalin oo aan sida u wadno gudida xaafadana ka ballanay qorshaha meesha noo yaalana waxa weeyaan hawshan taala hadii laga digtoonaan waayo berri soo noqonaysa in qof waajibana loo sameeyo laba shiftiyo habeenkii maantii ilaaliya meesha loogu talagalay dhiga ilaa meeshaas ay nadiif noqonayso laga qabsanayo shaqaalahaas ay joogi doona mishahar kharashkooda aan siin doona hadii la yiraahdo qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadaasi ayaa iyaguna waxay ugu mahadceliyeen maamulka cusub ee dawladda hoose ee magaalada Boorama sida dardarta ay ka muuqato oo ay qashinka yaala xaafadaasi ay maanta ula nadiifiyeen maayirka iyo xildhibaanada oo mahadnaqaynaa meeshan dib badan bay nagu haystay qashinka qurunka wax walba taasoo cagaftaan soo koreeno iska kaashayno community-ga xaafadda iyo maayirka iyo xildhibaanada cusub aad baan ugu mahadnaqaynaa taasoo imikana aan sameyn doona hadii la yiraahdo oo gudoomiyuhu naga ballan qaaday in meesha waashmaan loo sameeyo oo sandaqad yar loo dhiso oo hawlgalkaas soo socdo saanay maanta uu noqonay nadiif u ahaato Cabdi Fataax Axmed Harwanaag News magaalada Boorama.